halkani oo gobolka Siberia nolosha ka jirta halkan waa mid aad uga duwan nolosha dadka caadiga ah ay ku nool yihiin. haddii aad shay ku ilowdid bannaanka ilbiriqsiyo waxaad u soo noqonaysaa isaga oo dhagax noqday qabowga ka jira dhulkan awgiis. -48 In Yakut, 7 degrees outside. muuqaalkeenna maanta ayaynu ku dul istaagi doonnaa dhulkan qabowga badan ee loo yaqaano Siberia iyo meesha ay ka yimaadeen dadka ku nool noloshan ciqaabta u eg. Siberia waa gobol aad u ballaaran oo ku yaala galbeedka Ruushka. wixii ka horeeyay qarnigii 17aad waxa uu ahaa dhul madax bannaan oo ay degaan dad dhalasho wadaag la ah ummadaha degan bariga Aasiya. xuduudda Ruushku waxay ku ekeed dhanka Yurub xigta ee buuraha Ural. boqortooyadii Ruushka ayaa duulaan ku qaaday dhulweynaha Siberia oo ay marba qayb la wareegaysay. ugu dambaynna dhammaadkii qarnigii 18aad ayay si dhammaystiran ula wareegtay dhammaan dhulka Siberia oo ku baahsan galbeedka buuraha Ural ilaa bariga badda Basifiga. Siberia waxay ku fadhidaa dhul baaxaddiisu ay la eg tahay 13 milyan oo kiiloomitir oo isku weer ah. waa boqolkiiba 75 dhulka Ruushka oo uu badkiisu yahay 17 milyan oo kiiloomitir oo isku weeran. dhulkan intiisa badan waxaa fadhiya baraf. qabowga ayaa xilliyada qaar gaara ilaa -70 digrii oo ah halka ugu hooseysa ee uu qabowgu gaaro adduunka oo dhan. dhulka Siberia markiisii hore waxaa deganaa dad ugaarsato ah oo xiriir la leh bulshooyinka ku dhaqan bariga fog ee qaaradda Aasiya sida Tataarka iyo Igoorka. waxay waqtiyo fog ahaayeen kuwo noloshoodu ay ku dhisan tahay hab reer guuraa ah oo u hayaama halka ay ugaarsi ka heli karaan. markii uu dhulkan Ruushku qabsaday waxaa u soo hijrooday dad badan oo Yurubiyaan ah. ku dhowaad nus milyan qof oo Ruush ah ayaa soo gaaray dhulkan dhammaadka qarnigii 18aad. intii u dhaxaysay 1800 ilaa iyo 1900 waxaa mar kale Siberia lagu deegaameeyey ku dhowaad 7 milyan oo Ruushka Yurubiyaanka ah. sidaasi ayayna ku abuurmeen magaalooyin casri ah oo laga dhisay qaybaha xiga buuraha Ural ee Siberia oo u dhow magaalooyinkii hore ee Ruushka. sannadkii 1891 boqortooyadii Ruushka ayaa bilowday inay dhisto jid tareen oo isku xiraya labada dhinac ee Ruushka, dhinaca Yurub iyo dhinaca Aasiya oo ah halka uu dhaco dhulka Siberia. jidkan ayaa aad u sahlay in la gaaro dhulka fog ee uu baraf ku qariyay. sidoo kale waxaa ka dhashay isdhexgal dhex maray bulshooyinka Ruushka Yurubiyaanka ah iyo kuwooda Aasiyaanka ah. wuxuu sidoo kale sahlay in ay dowladdu nidaamka maamulka casriga ah iyo waxbarashada ay gaarsiiso qaybo ka mid ah dadka reer guraaga ugaarsatada ah ee ku nool baadiyaha fog ee Siberia. sidoo kale boqortooyadii Ruushka ayaa si qasab ah Masiixiyadda ama Kiristanka madhabkiisa loo yaqaano Orthodoxiska ugu dhex faafisay dadkii dhulkan loogu yimid oo ahaa dad aan diin haysan. noloshooduna ay ku dhisnayd caadooyin iyo dhaqamo hore oo ay dhaxal ahaan ku soo gaareen. markii la burburiyey nidaamkii boqortooyada Ruushka hoggaankana ay la wareegeen kooxdii hantiwadaagga ahayd ee aasaastay midowgii Sovyeetka. Siberia waxay ka dhiseen xabsiyo waaweyn oo lagu ciqaabo dadka ay u arkaan in ay afkaar ahaan ka soo horjeedaan. goobaha ugu qabow ayaa laga dhisay xeriyo musaafiriis ahaan loo geeyo dadka ay dowladdu doonayso inay ciqaabto. xilliga jiilaalka ee uu qabowga daran jiro goobo ka mida dhulkan ayaa gaaray heer qabow aan qiyaas lahayn. inta badan dadka musaafiriis ahaanta lagu diro xeryaha gobolkan qabowga badan laga dhisay ayaa qabowga dartiis u geeriyoon jiray. dadkan ayaa loo diri jiray shaqooyin adag xilliga cimiladu ay aad u qabowdahay, lamana siin jirin dhar iyo gabaad ku habboon qabowga daran ee ka jira xeryahan. intii u dhaxaysay sannadihii 1935 ilaa 1955 waxaa xeryahan ku nafwaayey maxaabiis gaaraysa ku dhowaad 2 milyan oo qof. dhammaantoodna waxay sababsadeen qabowga halista badan ee sida naxariis darrada ah loogu ciqaabay. xeryahan ayaa ahaa kuwo lagu cabsi geliyo dadka mucaaradka ku ah hoggaamiyihii Sovyeetka Joseph Stalin iyo hoggaamiyihii ka horeeyey ee Vladimir Lenin. gobolka Siberia waxaa dhaca magaalooyinka Yakutsk iyo Oymyakon oo ah kuwa ugu qabow dunida. qabowga ayaa xilliyada jiilaalka ka hoos mara -70 digrii. habeenka ayaa aad uga dheer maalinta
xilliyada qaar 21 saacadood ayaa habeen noqda, maalintuna waxay noqotaa wax ka yar 3 saacadood. magaalooyinkan ayaa ku yaala cirifka ugu dambeeya ee xiga badda barafka ah ee Arctic Ocean. dadka dhulkan degan ayaa u badan qabaa'ilka loo yaqaano Yakut oo asal ahaan ka soo jeeda dhulalka Mongolia iyo Shiinaha. noloshan adagna dulqaad dheeri ah ayay u leeyihiin. arrinta cajiibka ah ayaa ah dadka ku nool magaalooyinka qabowga daran uu dhaco inay caan ku yihiin cunidda hilibka cayriinka ah. ugaarta ay soo helaanna si ceeriin ah ayay hilibkeeda u cunaan. dhiiggana sidoo kale marka uu barafoobo ayay cunto ahaan u cunaan. ugaarta keliya ma ahan, sidoo kale kalluunka ay ka soo jillaabtaan badda barafka ah ee ku hareeraysan ayay isaga oo ceeriin ah cunaan. arrinta ayaa la xiriirta dhaqamadoodii hore iyo helidda dabka oo aan sahal ahayn. goobaha qaar ee magaalooyinkan u dhow ayaa laga helaa buuro baraf ka dhismay oo xiriirsan wax ka badan 1,000 kiiloomitir. helidda biyaha kulul ayaa aad u adag, mana jiraan tuubooyin biyo oo guryaha ku jira ama biyaha soo gaarsiiya guryaha, maadaama ay markiiba baraf isku beddelayaan. dadka ku nool deegaankan ayaa baraf ka kululeeya si ay biyo diran uga sameeyaan. tirada dadka ayaana sannadba sannadka ka dambeeya hoos uga dhacda intii hore. dadkuna badanaa waxay ka hayaamaan nolosha qabowga badan ee cidlada ah. ka guuridda dadka ayaa sidoo kale waxaa lagu sababeeyaa dabargo'a xayawaanka derrada barafka oo ah qutul daruuriga koobaad ee dadka ku nool Siberia guud ahaan, gaar ahaanna gobollada fogfog ee barafku uu sida saa'idka ah u fadhiyo. cimilada Siberia ayaa sannadahan dambe waxaa lagu arkaa in xilliga xagaaga ay gaarto heerkul aad u sareeya oo keena in barafku uu dhalaalo. sannadkii aynu soo dhaafnay ee 2022 waxaa la diiwaan geliyey heerkulkii ugu sareeyey ee dhulka Siberia, kaasi oo gaaray 38 digrii. isbeddelka cimilada ayaana lagu sheegay in uu saameyn adag ku yeeshay. dhammaadka dagaalkii labaad ee dunida kadib, gobolka Siberia waxaa laga helay kaydka gaaska dabiiciga ah ee ugu weyn caalamka. arrintan ayaa wax badan ka beddeshay muhiimadda uu dhulkani u leeyahay Ruushka, waxayna door weyn ka ciyaartay kobaca dhaqaale ee Ruushka. suuqii ugu horeeyey ee loo iibgeeyana waxa uu ahaa dalalka midowga Yurub oo ilaa maanta ku tirsan gaaskan laga soo saaro gobolka Siberia. dhulkan ayaa dhinaca kale leh goobo aan qabow badnayn oo leh heerkul dabiici ah, wuxuuna soo saaraa dalagga beeraha sida qamadiga, bariiska iyo qasabka laga sameeyo sonkorta. dhulka hoose ee xiga dhinaca Asia ayaa ah mid leh cimilo ku habboon dalagyada qaar, maadaama heerkulkiisu uu ka hooseeyo qaybaha kale ee waqooyiga xiga oo uu barafku aad u fadhiyo. midowga Sovyeetka ayaa goobo badan oo dhulkan ah ka hirgeliyey beero waaweyn si kor loogu qaado wax soo saarka dalagga beeraha ee Ruushka. wax soo saarka Siberia ayaa kaalin muhiim ah uga jira dhaqaalaha Ruushka. gaaska keliya ma ahan, sidoo kale macdanta ayaa dhulkan ka mid ah wax soo saarkiisa. gobolkan ayaa hodan ku ah macdanta ay ka mid yihiin qalinka, maarta iyo birta. aad ayaana looga qodaa goobo badan oo dhulkan ah. Siberia ayaa leh keed shidaal oo lagu qiyaaso 145 bilyan oo barmiil. keedka gaaska dabiiciga ah ee ku jira keliya Siberia ayaa ka badan 60 jeer baahida dunida, waana mid ka mid ah awoodaha Ruushka ee ka dhigay dal ka muuqda dunida inteeda kale si kasta oo uu dhibaatooyin badan lugaha ula galo. gobolkan kheyraadka intaasi la eg oo Ruushku ka sameeyo, haddana wax horumarin ballaaran ah kama helo dowladda dhexe ee Ruushka. dadka Eeshiyaanka Ruushka ah ee u badan dhulkan ayaa ah kuwo weli intooda badan ku jira nolol aad uga dambaysa adduunka intiisa kale. ugaarsiga oo ay noloshoodu inta badan ku tirsanaydna waxaa burburin ku haya howlgallada lagu baarayo shidaalka, gaaska iyo macdanaha kale. shirkadaha baarista gaaska sameeya ayaa xaalufiya dhirta ku taala hawdkan barafka ah si ay uga dhigaan dhul bannaan oo leh jidad tareen iyo goobo laga dhiso xarumaha baaritaanada lagu sameeyo. arrintan ayaa keenta in ugaarsiga oo ah nolosha koobaad ee dadka baadiyaha Siberia ku nool ay hoos u dhacdo. intooda badanna ay u hayaamaan magaalooyinka iyo deegaanada kale ee Ruushka, qaarkoodna ay gaajo ugu dhammaadaan hawdka barafka ah marka ay waayaan wax ay cunaan. sidoo kale goobaha fogfog ayaan helin adeegyada asaasiga ah sida korontada, waxbarashada, caafimaadka
iyo xitaa adeegyada dowladda sida maamulka casriga ah iyo ka qaybgalka siyaasadda, maadaama barnaamijyada horumarinta lagu koobay magaalooyinka ay degan yihiin dadka Ruushka Yurubiyaanka ah oo keliya. Dadka miyiga ku noolna aan waqti badan lagu bixin sidii loo horumarin lahaa noloshooda.